السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كيني داقاد إيو قيبتي سي سدحاد صومالي 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 وأفتخر أنا kadib taladii waxaa la wareegay wiilkiisii nuur wuxuuna dhashay 1835 miilaadiga waxaa lagu caleema saaray ceelkii bagi taariikhdu markay ahayd 1848 miilaadiga hooyadiina waxaa la oran jiray maro geedi wuxuu ahaa nin xikmad badan maahmaaha Soomaaliyeedna maankiisa ku xadhay hadalkiisuna miisaaman yahay wuxuu ahaa gabyaa tiriyay gabyo badan waxaana ka mid ah gabayadiisii laba sadaro ka mid haddii aynu soo qaadano gorayadu dhasheeda aroori bay dhigtaa shimbirtuna arooskay dhistay ubadka geysaa wuxuu ahaa ninkii u horreeyay askar ilaalo ah samaysta waxa uu ahaa nin caadil ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu yimi nin la oran jiray Shire Axmedna waxa uu ahaa nin beenoolo ah kadib maalintii dambe ayaa waxa uu sameeyay maskax waxa uu sir si aad xoolo badan u hesho waa inaad qof dambi saartaa kadib waxa uu tagay boqorkii gacantiisina qoorta ayaa ku sii laabtay waxaanu yiri hebel ayaa gacanta igu dhuftay gacantana ima shaqeynayso waxaanan doonayaa in magteedii laga qaado kadib waa uu iska garanayay boqorku inaanu ninkani run sheegaynin wuxuuna ku yiri warkaaga soo caday kadib cadeymayo waxba waa lagu waayay maalinkii dambe ayaa muran badan dhacay kadibna waxa uu ku fakiray boqorkii maskax inuu keeno kadibna ilaaladiisa qaar ka mid ah ayaa u amray inay ninkan caawa meel u galaan kadibna seefa u qaataan kulana yaacaan iyagoo ku dhawaaqaya dila kadibna isagoo gacantiisii qoorta ku laaban habeenkii gudaya ayay nimankii ku soo yaaceen waxaanay ku dhawaaqayeen hala dilo kadib ninkii inta uu silaaway ayuu gacantii seefti kula soo baxay dagaal la diyaar ayaa uu noqday kadibna halkaas ayuu ku fashilmay waqtigii nuur taariikhdu markay ahayd 1876 waxa dhulka Soomaaliyeed qabsaday masaarida ugaas nuurna way iskhilaafeen waxaanay ku fakireen inay dilaan kadibna nin ayaa ay u soo direen kuna soo ballamiyeen inuu faras jiirsiiyo markii uu faraskii soo kaxaystay ninkii isjirina jiirsi ayaa waxa uu la kulmay wax aanu ka filaynin faraskii ayaaba cirka ka yimi oo dhulka iska galay bilaa camal micnihiiyadan ceeridin kadibna ninkii iyo dadkiina way wada yaabeen kadibna waxay masaaridii moodeen inuu ninkani karaamo leeyahay boqorkoodii Masar joogina way u sheegeen boqorkiina inta uu yaabay ayaa yiri ninka igu yeedha kadibna waa uu tagay qaahirana way ku wada kulmeen dhar ka samaysan harag shabeel iyo xariir ayaa ay u xidheen kuna soo dhaweeyeen markii ay taariikhdu ahayd 1884 waxa soo galay Ingiriiskii masaaridina way isaga baxeen xerarna waxa loo dhiibay nin Soomaali ah oo la oran jiray Cabdalle Cabdishakuur taariikhdu markay ahayd 1887 waxa dagaal soo qaaday boqorkii Menelik ee Xabashida dagaalkaas oo ku magac dheeraa Jalaqo waxaana ku leeday dad fara badan oo muslimiinta iyo dadkii Soomaalida ahaa kaga dhintay Xabashida lafteedana dad aan yareyn ayaa kaga dhintay kadibna nin khiyaamolaha ayaa markiiba Xabashida u tagay waxaana kula taliyay in magaalada ay xagga bari ka soo galaan xaggaas ayaan iska ogeeyne iyadoo la baraad la yaahina way soo galeen dhankii barina way ka soo galeen dad badanna way laayeen xerarna way qabsadeen waana la wareegeen ninka colka watina magaciisa waxa la oran jiray Raas Mokonon kadib ugaaskii waa uu dhintay waxaanu dhintay taariikhdu markay ahayd 1889 ugaasnimadiina waxa uga dambeeyay dhowr ugaas oo ay ka mid ahaayeen ugaas Rooble ugaas Cilmi Warfaa ugaas Doodi iyo qaar kale oo badan taariikhdooduna aanay aad u fara badnayn kadibna waa ay baabaaday boqortooyadii iyo ugaasnimadii gudabiirsigu daawade cadawga Soomaali waa Xabashi iyo Oromo ciilna way noo qabaan geeska Afrika inay naga masaxaan ayay rabaan taariikhdeenina iyaga aasay ciilna u qoday daawade damiinimadu waa cudure dadnimadaada ilaasho oo dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada weerar ayaa lagu yahay ama sida u damenow ama oo daahyadu ha ku rognaadaan
ama dareenkaagu ha soo jeesto oo cadawgaaga u dhuun daloolnow cidda cadownimada kuu qabtana ogow.